السلام عليكم magacayga maxaa la Aasha Maxamed Voices of Tomorrow ka shaqeeya dhinaca oo markino developmental screening ka cunuga ciyaalka marka la fiirinayo meesha sidii loo dhisayo ciyaalka maanta maxaa ka hadleynaa age stages waxa la dhaho markino oo ciyaalka oo fiirino meesha sida u dhisi lahayn first page ka markino oo la fiirinayo maxaa waaye waraaqda horta hadda fiirinayno 42 bisha waa cunuga markuu jiro so like 3 sano camal kala ama almost 4 sano first page ka maxaa ku qoraysaa cunuga magaciisa dhalashadiisa and then second meesha kale maxaa waaye qofku buuxinayo so waalidka ma buuxinayo ayada ma buuxinayo aabba ma buuxinayo and then marka turn garana page ka muxuu ka hadlayaa shan wuxuu ku weydiinayaa oo cunuga ku muhiimsan koodi ka bilaabanayso communication marka la dhahan maxaa laga wadaa cunuga si kula hadlooya cunuga marka waxa weydiisid su'aal weydiisid jawaab ma ku siin karaa and then asina su'aal ma ku weydiinaa then jawaab so back and forth conversation ka cunuga la haysatid midka labaad maxaa waaye gross motor na maxaa laga wadaa lugaha waaweyn ka soo banooniga cunuga markuu ka gareenayo ama markuu uu rabo inuu stairs ka fuulo kan saddexaadna maxaa waaye fine motor na maxaa laga wadaa cunuga markan hadda qalin uu diibtid ma qori karaa cunuga sidoo qalinka u qabtaa and then maqas hadda uu diibtid waraaqda sidoo maqaska uu goonayo kan afraad oo lagu weydiinayo maxaa waaye problem solving so markii problem solving lagu dhaho maxaa waaye cunugan haduu markino wax aa weydiis ama wax aa sawirtid ma ku sheegi karaa waxaas wuxuu yahay ama haduu puzzles ku ciyaarayo ma isgelin karaa puzzle-kaas kii shanaadna muxuu ka mid yahay personal social na maxaa laga wadaa cunuga ma soo qaadan karaa jacketka ma gashan karaa cuntada asin ma siin karaa musqusha kaligiis ma aadi karaa so maxaa jira marka all this oo markino uu weydiiyay communication gross motor fine motor personal problem solving then sidee markino loo score garana waa in waxa aad lagu weydiinaa so su'aasha markino aad ku celinaysid maxaa kamid ah yes mean like ha cunugayga waa u jeedaa wuu sameyn karaa sometimes maxaa laga wadaa like marmar waa arkaa marmarna ma arki and then not yet means like maba arki cunugayga maba sameyn karaa soo banooniga tuuraa ma arki ama soo qalinka ma arki kari so hadda maxaan tusaa sida markino loo score gareenaa iyo sida la isku aad gareenayo so hadda maxaa fiirinaynaa waalidkii su'aashii iyo jawaabtii uu ka soo jawaabay sida hadda loo score gareenayo fiirinaynaa markii koodii maxaa la weydiiyay dhinaca waalidka ka soo jawaabay communication-kii so hadalka cunuga uu la heystay ama cunuga hadalka uu la hadlaayay so koodii maxaa la weydiiyay adoo markino cunugaaga u sheegin ama u tilmaamin cunugaaga buuga ma qaadi karaa table-ka ma saari karaa ama kabihiisa kuraasta hoosta ma gelin karaa waalidka muxuu dhahay haa so yes markuu dhahay 10 lagu qoraa kan kale la weydiiyay maxaa waaye su'aasha labaad la weydiiyay cunugaaga markuu book fiirinayo ma ku sheegi karaa buuga sawirka iyo picture-ka wuxuu u eegay ma ku sheegi karaa haa waalidka dhahay hadana tan ku qoray kii saddexaad maxaa waaye cunugaaga markuu gashanayo jacketkiisa ma xiri karaa seniorka kor iyo hoos ma ku sameyn karaa waalidka muxuu dhahay hay 10 uu ku qoray hadana example-ka number 4 maxaa waaye cunugaaga markaa magaciisa weydiisid ama kuu sheegi karaa so first name ka last name ka ma kuu sheegi karaa waalidka muxuu dhahay haa so 10 lagu qoray hadana tii shanaad maxaa la dhahay adoo markino ama ku taageen ama u tilmaameenin cunugaaga 3 things ma kula sameyn karaa like gacmahaaga isku kalaab garee ama albaabka u soo noqo hadana waalidka muxuu dhahay haa 10 lagu sameeyay kii midka ugu dambeeyo 6 maxaa la dhahay cunugaaga markino hada sentences aa u sheegtid ma kugu soo celin karaa like maxaa rabaa inaa park aado ama maxaa rabaa tooygeygii waalidka muxuu dhahay haa and then 10 lagu qoray so communication-kii hadalkii cunugaas muxuu ku helay 60 communication markay noo dhamaato gross motor hadana laga jawaabay gross motor hadana sida hadda dhahayo kala maxaa waaye lugaha waaweynka cunuga uu isticmaalayo koodi maxaa la weydiiyay cunugaaga kor iyo hoos ku sameyn karaa ma fuuli karaa jaraanjarada waalidka muxuu dhahay haa 10 waa ku qornay
midka labaad la weydiiyey maxaa waaye cunugaaga hal lug ma ku istaagi karaa waalidka muxuu dhahay haa 10 waaye kii saddexaad maxaa la weydiiyey cunugaaga maarkino banooniga intuu qaado gacantiisa ku qaado ma tuuri karaa waalidka muxuu dhahay haa haddana 10 ku qornay tii afaraad cunugaaga kor iyo hoos ma u boodi karaa waalidka muxuu dhahay marmar sometimes 5 lagu qoray meeshaas tii shanaad cunugaaga maarkino banooni weyn labada gacmood ma ku qaban karaa hadaa lagu soo tuuro waalidka muxuu dhahay haa 10 lagu qoray meesha tii ugu dambeysay tii lixaad maxaa la weydiiyey cunugaaga maarkino ma fuuli karaa markuu meesha park playgroundka joogo geedaha slide-ka ma fuuli karaa haa ayuu dhahay and then 10 lagu qoray so meeshaas lugaha waaweynka uu isticmaalayo gross motorki muxuu ka helay 55 haddana maxaa aadeynaa fine motor sidaan idahayna fine motor maxay ka hadlaysaa siduu cunuga wax u qoraayo ama siduu markna maqaska isticmaalayo waalidkan maxaa la weydiiyey markaa sawirtid circles markaa sawirtid cunugaaga ma sawiri karaa ma ku copy garan karaa adii inuu ku fiirsado ma samayn karaa marmaree dhahday 5 loogu qoray and then mid su'aasha labaad maxaa la dhahay cunugaaga maarkino markuu ku fiiriyo adoo line sawiraysid ma kula sawiri karaa markaa waraaq u dhiibtid haa uu dhahay 10 lagu qoray su'aasha saddexaad maxaa la dhahay cunugaaga sida hadda ka hadlayna maqas hadaa u dhiibtid cunugaaga maqas iyo waraaq hadaa u dhiibtid ma gooyni karaa marmar ee dhahday soo 5 ku qornay midda afaraad maxaa la dhahay cunugaaga maarkino sida qalinka suu qaban karaa labada farood ma ku qabnaa mise tibtada faro ku qabtaa waalidka muxuu dhahay haa 10 waaye midka oo shanaad cunugaaga maarkino markaa u dhiibtid puzzles ma isku samayn karaa waalidka muxuu dhahay haa 10 ku qornay midda lixaad maxaa waaye cunugaaga markuu maarkino markaa wax sawirtid ma ku copy garan karaa ama trace garan karaa ma sawiri karaa haa ay dhahday 10 lagu qoray so meeshaan fine motorka markay kamto gacmaha iyo yadiiska wuxuu isticmaalayo scoorku ku helay 45 waaye and then midka kale oo la weydiiyey maxaa waaye problem solving oo waalidka kasoo jawaabay su'aasha kooda la weydiiyey maxaa waaye cunugaaga markuu arka geedkan sawirkan meesha ku sawiran ma kuu sheegi karaa wuxuu yahay waalidka muxuu dhahay haa and then 10 lagu qoray and then meeshaan maxay ku qortay cunuga wuxuu dhahay snowman uu ku qortay su'aasha labaad la weydiiyey hadaa dhahdid maarkino 6 7 3 ama 5 4 cunugaaga ma kugu soo celin karaa haa ay dhahday 10 meesha lagu qoray su'aasha saddexaad cunugaaga markaa tustid blocks ama box yaasha maarkino iskor saartid ma iskor saari karaa sida aad isku kor saartay waalidka muxuu soo jawaabay marmar 5 lagu qoray iskoo gareenay su'aasha afraad oo la weydiiyey maxay ka mid tahay cunugaaga hadaa maarkino hadaa dhahdid hadana 5 7 3 cunugaaga ma kugu soo celin karaa waalidka muxuu dhahay haa soo 10 ku qorna meesha tii su'aasha sanaad oo la weydiiyey maxaa waaye hadaa maarkino cunugaaga soo hordhigtid circle-kan ma kuu sheegi karaa midka yar midka weyn iyo midka oo maarkino dhexdhexaadka hooyada maxay dhahday marmar soo 5 la siiyey su'aasha lixaad cunugaaga maarkino ma ciyaaraa so like pretend ma ciyaara haduu maarkino ama moos u arka ama aabbaha urka ma dhaha ani aabbaha ahe ama hooyada ahe waalidka muxuu dhahay haa 10 ku qornay so meeshii oo problem solving cunugan muxuu ku helay 50 and then haddana maxaa aadeynaa personal social so sidaa ka hadlayno kale cunugan shakadka ma gashan karaa waxaasoo dhan so su'aasha kooda la weydiiyey maxaa waaye cunugaaga markuu muraayad isku fiiriyo ma isweydiiyaa qofkaas yaa waaye ma dhihi karaa ani waaye ama magaciisa muu dhihi karaa waalidka muxuu dhahay haa so 10 lagu qoray su'aasha labaad cunugaaga jakadkiisa ma gashan karaa fanaanada ma gashan karaa kaligiis waalidka muxuu dhahay haa 10 ku qornay tii saddexaad adoo maarkino
u tilmaamin ama asoo dhihin cunuga makuu sheegi karaa gabaraa ahe ama wiilaa ahe and then maka jawaabi karaa hooyada maxay dhahday haa 10 ku qornay tii afaraad cunugaaga ma arkin oo markuu sugaayo ciyaalka ama dadka waaweynka ma sugi karaa turnkiisa markii la gaaro asi before oo turnkiisa gaaro ma sugi karaa hooyada maxay dhahday haa 10 ku qornay su-aasha shanaad cunugaaga kaligiis cuntada ma goran karaa cuntada baaquliga saxanka ma ku goran karaa ama cunuga markin qaando weyn asi ma soo qaadan karaa ma cuni karaa cuntadiisa waalidka muxuu dhahay haa soo 10 ku qorna meesha midka lixaad cunugaaga gacantiis oomo iyo ama saabuun ama biyo ma ku dhaqi karaa gacmihiisa and then markuu dhaqdo gacanta mu dry gareyn karaa so wax ma ku tirtiri istiraashada ma ku tirtiri karaa waalidka muxuu dhahay haa 10 ku qornay and then meeshaan ma arkin oo personal social ka la fiiriyo cunugan muxuu helay 60 and then markuu waxaan oo dhan su-aasha ee jawaabto waalidiinta meel maxaa jirta oo la dhahayo overall la dhahayo overallna maxaa laga wadaa meesha oo markino maybe more or question oo su-aal waalidka la weydiinayo oo kamid ah cunugaaga ma maqli karaa si fiican wax ma u maqlaa waalidka muxuu dhahay haa and then tan labaad oo la weydiiyey ma u malaynaysaa cunugaaga hadalkiisa sida ciyaalka markino asoo kale la eg ma u hadlaa ama may u hadashaa waalidka muxuu dhahay haa and then su-aasha saddexaad maxaa la dhahay cunugaaga markuu hadlo dadka dad maa fahmaya qaar waalidka muxuu dhahay haa midda afaraad sidoo kale waa cunugaaga haddana markuu hadlo ama adi ma fahmaya dadka kale ma fahmayaan waalidka muxuu dhahay haa and then su-aasha shanaad ma u malaynaysaa la dhahay cunugaaga inuu socon karo inuu ordi karo inuu meelaha fuuli karo sidoo kale ciyaalka markano asi oo sanadkiisa la eg waalidka muxuu dhahay haa midda lixaad qof maarkino ama adiga waalidiintaada ama familiga historygiisa qof maarkino dhagool ahaa ama haysteen wax hir maqleenin ama indhoola amalo kale ahaa waalidka muxuu dhahay maya mid su-aasha maarkino 7 maxaa la dhahay cunugaaga aragtinkiisa ma ka walwalaysaa waalidka muxuu dhahay maya and then midda kalo maxaa la dhahay cunugaaga medical problem muu haystaa like qalitaan ma galay asthma muu haystaa waxaas waalidka maxay dhahday maya midda kalo la weydiiyey wax ma cunugaaga maarkino siduu u dhaqmaayo maa ka walwalaysaa waalidka muxuu dhahay maya and then midda ugu dambeyso wax kale maa cunugaaga ka walwalsiinaya isdhehaysid maarkino maybe saasi saasa cunugay ka walwalaya waalidka muxuu dhahay maya so hadda pagekan maxaa waaye meeshii maarkino su-aashii waa answer gareena waa isku soo darnay so wixii dhan oo meesha isku samey inta ku guurineynaa so waa ujeediin meeshaan maxaa ku qoran communication gross motor fine motor problem solving and personal social so wixii maarkino oo totalkii meesha noogu qornaa inta ku guurineynaa chartkan so communication meel geed maxaa jiro oo la dhaho cut off so meesha cunuga loogu talagalay maxaa waaye 27 cunugan hadda muxuu helay 60 so intaa maarkino shade gareynayna gross motor 3 loogu talagalay cunugan muxuu helay 55 so 55 waatana meeshaana mark gareynayna fine motor 19 loogu talagalay cunugan muxuu helay 45 so meeshaan waa 45 intaa ku qoreynaa problem solving 28 cunugan helay loogu talagalay ba cunuga muxuu helay 50 kontonkii waa kana so meeshaana ku qoreynaa qalinka personal social cunuga muxuu helay 3 maxaa loogu talagalay maarkano scoreka 3
cunugan muxuu helay 60 so intaa lagu sameynaa so marka geedkan fiirino maxaa laga wadaa cunuga haduu meeshan cadka uu joogo maxaa laga wadaa marka cunugaas markino meesha laga rabo joogaa developmentally sidoo markino age-kiisa dadkaas oo la eg camal kale meesha sidii laga rabo uu joogaa so maka walwaleeno wax ma u baahno cunuga haduu meeshan gareega uu joogo maxaa laga wadaa maybe cunugaas for example hadda fine motor haduu uu ahaan lahaa 25 meesha gareega cunugaas maybe maxaa u baahan yahay more activities inaa u sameyno sidii loogu soo dhiso fine motorkii haduu markano cunuga meeshan dark black uu joogo oo meeshan black area uu joogo that means cunugan maybe more than waxa aan ka sameyn karno u baahan maybe rescreening referral u baahan yahay so inta kalena number 2 transfer overall question that ku hadlay oo waalidka more question la weydiina su'aasha la weydiinayo for example inta lagu soo guurino so wixii waraaqihii oo soo sameynay oo ka soo answer gareyn inta lagu soo wada guurinaya and SAS waa sidii marka loo score gareeyo ASQ3ga so magacayga again Caasha Maxamed Ali dhaha Voices of Tomorrow baan ka shaqeeyaa markano dhinaca oo ciyaalka la shaqeeyo sida markano ciyaalka soo dhisi lahayn school readiness waxa sida ugu diyaarin lahayn the reason oo markano ASQ-gan iyo assessment-kan iyo waxaan sameeyno isna marabno markano ma dhahayno cunuga label ama markano diagnosis ama itixaan waxa soo dhan ma aho just maxaa rabnaa inaan fiirno se cunugaaga ama cunuga say u soo dhisayna amal kale sida markano before uu aadin schoolka sidoo diyaar u noqdo by the time uu kindergarten uu galo wixii dan hadda laga rabo qalinka sidoo qaban lahaa maqaska sidoo waxa uu goon lahaa waxa soo dhan diyaar buu ahaana in hadda ka qabano oo soo dhisno cunugaas schoolka iyo wixii dan diyaar u noqon doona so that's one of the markano oo reason ka amal u sameeyeen oo dhahayna waalidiinta advocacy inay ahaadaan oo markano ay iskuuga adinka sameeyeen sida adinka xataa u ogaatiin cunugeena intuu jooga ama cunugeyga saan u baahan yahay meeshan wax yar inta loo dhiso and then that's where ani as Aashada of Voice of Tomorrow ka shaqeyso oo activities iyo waxaas oo waalidiinta la sameeyo sida markano cunugaas u soo dhisno together